tusaale meesha u socda hadda meeshan waa urur siyaasadeed diiwaan gashan oo doorashooyinkii ama gobolka banaadir ka dhacay ama koonfur galbeed ka dhacay ama kuwa hadda la qaban qaadanaya ama kuwaasna ka qayb qaatay kuwaana raba inuu ka qayb galo oo urur siyaasadeed diiwaan gashan ah iyo urur siyaasadeed aan diiwaan gashanayn labadooda kee mucaarad noqon kara معارض صح وحا حزبيدي كقيب قال doorashada ee isdiiwaan galiyay ee maaragtay talaabadii la qaaday dhinacooda ka qaaday kuwaas ayaa mucaarad dhihi kara waxay soo jeediyaan waa wax la dhihi kara alla ilaahay waa meel mar sababtoo ah dad fara badan ayaa ku xiran codna way heli karaan laakiin waxa ay sheegtaa kuwa jasiiro ku xareysan cid ay cod ka helayaan iyo cid soo doorat iyo cid ay matalayaan marka waxa way dhalinyaro magaalada joogta daa lacag kala tirto tirada kaalay iyo imaada taas doorasho ma waxa la rabaa in leedahay xisbigaaga dad ku jiraan dadkaasuna ay ka qayb galaan doorasho nooc kasta oo wadanka ka dhacdo haddaa fadhiisatid oo diidid oo laakiin doorashada ay dhacdo hadda waa ku qasbanta sax marka ururada maaragtay misan hadda ee diiwaan gasha aan waxaan qabaa kuwii ka qayb galay kuwaas ayaa rajo fiican leh kuwaas mucaarad waayahay markaa fiirisid hadda waqtiyada lagu jiro oo يعني مركز الدولة مدة حليت كده دماغه أما ما نديت كله قلت له قال وجباب سياحي وحاب لعبة تقيله دولة فرصة الله مصية أنا أيضا مع رئيس وقت كله جوركا أما قرش أو كنتو أما سيد قف كحكم كجوجا ومركز ليه هاي سدانا سومالي وكهبون ضد بدن لقلت شنا لقوم المريء لما سمع قيلة باللعبة محا السبب إن فرقها اللي يسكن ده 4 سنة كنت كستا سبب reerka Soomaaliya leeyahay waa loo qaabiyay labadii kun ka dambeeyay arrinkaas loo qaabiyay in markii ninka madaxda 2 sano uu joogo la bilaabo halaga hadlo halaga doodo way fiicantahay meeqa sano soo dooday meeqa sano soo hadlay marka waxay iska noqotay caado in meel la sugu yimaado oo la dhaho dawladda waqtigeedu wuxuu dhamaanaa 15 kamid oo dhamaanaa hebel majoog ma ku aqoonsanin adigu yaa taa marka wax aqoonsanaysa waxa iska noqotay caado soo noqnoqoto aad u foolxun waa dadan dawladnimadu waxa ka aqoon waxa la rabaa hadda dawladda la maaragtay la tartantid قرادات كذا سحدي أذكر أدربت شقة بدنا كارس أو أذو الدجن أون مرمن حزب جاي نظامي وسمي شرعية كبعد الدولة تسوي نحسن ولا ضد على كذا بقى الدولة اسمها يسمع أنت عندك على وضن كي معرفت هيلدون دورش هيلدون إن كقاعد سبت أو كقاعد سمع تاعي حب دخل كذا سوي نحسن أنا لكن قابك أو لا دخل ما يحدى عايزة ما واحد سبعين هنا بدك أو مهم كحتى بنام بحر أرجع أروح بنام بحر وتاني صبر تاما متكوت مالي الحر متكوت ومتكوت وبنام بحر حقيقة أنا ملا وين وجودنا بنام بحر مكتب سبب بنام بحر وتغيير سياد برنا كما طيب قلم سياد بروح لوريداني كما طيب قلم وحبط لسكو عرساناي ومهارات دبدا وين ومضي نسوت مع ضو لو بس ورجين دولد كما يسقين قلم صوما برن اوغا مالك ولا معني اسمه ومهارات معني سطوان صبرتا عندهم كوحدة جزيرة هصوبرتان هصو أخريان نظام اللي هذا بنام بح معني اسمعه وعدد كأصوى بحه أرين معرفت أي كجبتين أما أي كعوانيان أو الرمان إن أي كلا حضلان دولد مركز عديكم يعني كلا هذا عندما أقول لك هذا ninka guriga laga dumiyay ama guriga dhacay guriga iga maqan ama dhul laga haysta dhahay ninkaas xaq u leh haduu dhawaaqo soo mudaharadayn dawladdu waxba dhibaato ma isku ma qabaan sababtoo ah waxa dhici lahayd si nadiif ah oo mudaharado codsigiisana u gudbis wala la dhageysanaa waxa jira shakhsiyaad mudaharada jiro سؤال حقيقي قال المظاهرات تبين لقاته الأرضية وحاسوستا إنها مظاهرات كليس قولي سامر سي شرع دراء لو قبل بغي 5 دقائق كده دولتي مدحينه سو جوال 5 دقائق كده المساجد إمامك
ayaa gurigiisa laga jooga waa sheekadiisa muxuu qabtay press conference oo qabtay waa cawday war anaa dhulkaan iskale war anaa saar war madaxweynihii aaw war dowladda kaasaa banaan bax la dhaha macnaha wax usoo banaan baxay oo dadkaas dariiqas ka socda uga soo baxay inuu sheegto wixii ka maqnaa asaga una gudbiyo ciddii gacanta ku haysa